Mohamed Salah muddadii uu joogay Liverpool waxay ahayd mid guulo badan, balse waxaa jiray dhacdooyin xanuun badan oo isaga iyo taageerayaashaba soo maray. Haddaba saaxiibayaal, waxaan idinkaga soo diyaariyay 10 dhacdo ee ugu murugada badnaa Salah intii uu joogay kooxda Liverpool. Ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan. Qodobkeena ugu horeeya, dhaawacii finaalka Champions League 2018. Tani waa dhacdadii ugu xanuunka badnayd. Salah oo markaas ku jiray qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ayaa garoonka ka baxay isagoo ooynaya kadib markii uu garabka ka dhaawacay ciyaaryahan Sergio Ramos. Liverpool waxay lumisay tartankaas, isaguna wuxuu qarka u fuulay inuu seego koobka adduunka. 2. Guuldaradii finaalka Champions League 2022. Kadib markii uu Salah ballan qaaday inuu ka argoosan doono Real Madrid, Liverpool ayaa mar kale lagaga adkaaday finaalka Paris. Salah wuxuu sameeyay fursado badan, balse goolhaye Thibaut Courtois ayaa ka hor istaagay, taas oo keentay ugu dambeyntii niyad-jab weyn. 3. Ku guuldareysigii Premier League hal dhibic 2018, 2019 iyo 2021-2022. Inkasta oo uu Salah dhaliyay goolal tiro badan, haddana 2 xilli ciyaareed ayay Liverpool ku weysay horyaalka hal dhibic oo kaliya, iyadoo Man City ay ku guuleysatay. Waa xanuun marka aad dhibco rikoor ah keento haddana aad horyaalka weydo. 4. Sagootintii Jurgen Klopp 2024. Salah iyo Klopp waxay ahaayeen mataano guusha u horseeday Liverpool. Markii uu Klopp ku dhawaaqay inuu ka tagayo kooxda, waxay Salah u ahayd dhammaadkii xilli ciyaareed dahabi ah iyo sagootin saaxiib iyo macallin weyn. 5. Khilaafkii garoonka ee isaga iyo Klopp 2024. Ciyaartii West Ham, Salah iyo Klopp ayaa lagu arkay iyagoo dood kulul dhex maraysa xilli Salah uu soo galayay garoonka. Waxay ahayd muuqaal murugo leh in la arko xiriirkoodii oo xumaaday dhammaadkii xilli ciyaareedka. 6. Bixitaankii Sadio Mane iyo Roberto Firmino. Saddexdii afka hore ee caanka ahaa Salah, Mane iyo Firmino markii ay kala tageen, Salah wuxuu u muuqday mid kaligiis ka haray saaxiibadiisii uu wax kasta la soo qabsaday. Kalinimadaas dhanka weerarka ah waxay ahayd mid laga dareemay garoonka dhexdiisa. 7. Gool la'aantii xilli ciyaareedkii 2020-2021. Xilligaas Liverpool waxay weysay daafacyadeeda oo dhan, kooxduna waxay garoonkeeda Anfield ku guuldareysatay 6 kulan oo xiriir ah. Salah inkastoo uu goolal dhaliyay, haddana wejigiisa waxaa laga dhex akhrisanayay murugo maadaama kooxdu ay burbureysay. 8. Kaalinta 5aad iyo u soo bixi waagii Champions League 2023. Salah ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay qoraal uu ku raaligelinayo taageerayaasha kadib markii ay kooxdu ku fashilantay inay u soo baxdo Champions League. Wuxuu sheegay inaysan jirin wax marmarsiyo ah, taas oo muujisay siday ugu xun yihiin. 9. Lumintii Golden Boot-ka ee daqiiqadii ugu dambeysay. Inkasta uu dhowr jeer ku guuleystay, haddana waxaa jiray xilli ciyaareed uu hal gool ku waayay abaalmarinta gool dhalinta, sida 2021 ka hor inta uusan dhalin Son Heung-min, taas oo muhiim u ahayd tartanka shakhsiga ah ee uu markasta hiigsado. 10. Murankii qandaraaska ee daba dheeraaday. Muddadii uu socday wadahadalka heshiis kordhinta, waxaa jiray xaalad hubaal la'aan ah oo taageerayaashu ka baqayeen inuu baxo. Salah laftiisa ayaa dareemayay cadaadis xooggan oo dhanka warbaahinta ah xilligaas ka hor inta uusan saxiixin qandaraas cusub. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii inoogu eg barnaamijkeena. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Balse waxaan kaa codsanayaa intaan muuqaalka ka bixin, haddii aad aragto muuqaalkan, fadlan noo like garay, sidoo kale channelkana subscribe noo saar. Mahadsanid.